بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي معلمين تكحرين جنرال كبلال Institute of Scientific Subjects and Languages كسور وهذا مادة كيمسترية فصل كفهم 2 جبتر كيسي لبا قيبتي سي أفراد هدو إلهي نود قاسي وحان كبلا بدونا Types of Chemical Bonding نوعيلا دبر كيميكاليتك Lesson Objectives أدابت لقليها يا عشر كاني By the end of the lesson لما كعشر كاني The learner أرضيو should be able to وحاد أود إيلان دونتا explain إن الشرحات كبحسيد and differentiate أنك لقا قادي the types معيلة of chemical bonding دور كيميكاليتك divine إن التحديد ionic bonding دور كاليرادو ionic demonstrate إن الشرحات كبحسيد أرضيو electron transfer isu gudbitaanka electronada between ee u dhaxeeyo atoms atomyada to form si u sameeyaan ionic bonding dabar ioniga describe ardiyo inay faale ka bixisid the properties sifada of ionic compounds isku dhiska ioniga divine ardiyo inay sharaxaad ka bixisid covalent bonding dabar wadaageedka وياي describe ardiyo inay faale ka bixisid the properties sifada of covalent bonds ee dabar wadaageedka ama molecular compounds iyo isku dhiska uu leeyahay molecularka taasi waxay tahay ujeedada aan ka leenahay casharkaani marka aan dhamnayno inuu ardaygu awood u leeyahay inaan waxa soo sheegnay oo sharaxaad ka bixiyo وياي chemical bonding dabar wadaageed what is chemical bonding horta maxaa la yiraahdaa dabar wadaageed is an attraction waa isjiidadka between ay ka dhaxeeyo atomic nucleic bu'da atomka and valence electrons iyo shardambaadka taasoo bing isku dhagaayana lagu yiri ama isku hayso atomyada together si wada jira isku hayso a chemical bonding dabar kiimikaaleedku forms uu sameysmaa waan markii two atoms laba atom at relatively isla xiriiriyaan high potential energy tamar isla xiriiriyaan come into isku imaanayaan closely isku dhagayaan proximate to qiyaas ahaan lagu yiri to one another midka kale isku soo dhawaanaya and reactive way la falgalayaan to minimize the potential energy iyadoo la yareynayo tamartii there are waxaa jiro two major types laba nooc aad u waaweyn ayaa jiro of chemical bonding ee dabar kiimikaaleedka koo waxay tahay ionic bonding dabarka ioniga wuxuu ku dhexeeyaa metal iyo non-metal ayuu ka dhexeeyaa dabarka waxaa la yidhaahdaa covalent bonding dabar wadaageed ayaa la yidhaahdaa taasna wuxuu u dhexeeyaa non-metals ayuu u dhexeeyaa mid walibane si toos ayaan u tegi doonaa waayahay ionic bonding maxaa la yidhaahdaa dabarka ioniga ayaan ka bilaabaynaa canab iyo sitin waxay fadhisaa at table miis ayay ku fadhisaa with aurala iyo caasho ayay la fadhisaa canab gabadha la dhahaayo xaas waxay haysataa 10 markers 10 calaameeyo ayay haysataa bad laakiin aurala iyo caasho xaaf waxay haystaan 7 ayay haystaan 7 markers ayay haystaan each other midba midka kale house deeba can each of them mid waliba lagu yiri half ku yeelanaya isad xirmo of 8 markers waxaa lagu yiri saddexdoodaba sidee ayay ku yeelan karaan sideed calaameeye sidee bay ku yeelan karaan lagu yiri waayahay in the formation sameysanka of ionic bonding ee dabarka ioniga metal atoms birta atomka birta dunay ayaa wuxuu bixinayaa electrons ayuu bixinayaa electroniyad ayuu bixinayaa wuxuu siinayaa tuuso si electroniyad ayuu bixinayaa to the formation si uu u sameeyo of positive ions iono balas qaadanayo and non-metals iyo birmahayaashan atomyada birmahayaasha except waxay aqbalayaan electronada ay aqbalayaan easily si fudud ayuu ka aqbalayaan to form si ayna u sameeyaan negative ions iono minus
Ions negative ion waxaa lagu yiraa anions waay. Positive ion waxaa lagu yiraa cation waay. Cation metal waay, anions non metal waay. Then intaa kadib the cation and anion are attracted isu jiidanayaan together si wada jir ah by electrostatic force iyadoo adeegsanaya awood danab isjiidadka ayagoo adeegsanaya wujitaasoo is the attraction waa isjiidadka between u dhexeeya opposite charges danabyada cagsiga isku ah. What is definition of ionic bonding? What is ionic bonding? maxaa la yidhaahdaa double ionic? maxaa la yidhaahdaa is a bonding dabar waay between wuxuu u dhexeeya metal atoms birta atom muxuu ahay birta atomka birta ah an iyo non metal atoms iyo birta birma muxuu ahay atomka birmahayaasha. Definition ionic bonding muxuu qaataanka ionic bondiga is a bonding dabar waay between u dhexeeyo metal atoms birta atomka birta an iyo non metal atoms iyo birmahayaasha as a result natiijo waay of electron transfer ee la isdhaafsanayo electroniyaad. For example, tusaale ahaan in the formation sameysamka of chloride carbon isku dhiska chloride ka ahaa lagu yiri sodium atomka sodium gives wuxuu bixinayaa electron ayuu bixinayaa alpha wuxuu sameynayaa lagu yiri sodium ion ayuu sameynayaa oo positive a chlorine atom chlorine except wuxuu aqbalayaa the electrons ayuu aqbalayaa of the sodium atomka sodium alpha wuxuu sameynayaa lagu yiri chloride ion ayuu sameynayaa. aan islaamna sabuurada hadduu ilaahay yiraahdo marka waxaa lagu yiri sodium atom marka la sameeyo electron configuration la sameeyo sodium shalkeeda u sareeyo waxaa galaya +1 ayaa galaya halka chlorine ayadana shalkeeda u dambeeyo u baahan tahay muxuu ahaa si ay u buuxsanto -1 ay u baahan tahay sidaas darteed +1 sodium waa +1 sodium waa +1 halka chlorine ay tahay iyadana -1 sidaas darteed waxaa lagu sameynayaa muxuu ahay cross lagu sameynayaa +1ka intay soo aadaysaa kana intay soo aadaysaa ayaa soo baxaysa sodium chloride. saas ayuu ku yimid sodium chloride waayahay cashirkeena dib aan ugu laabana marka sodium oo positive ah iyo chlorine oo negative ah attract ayaa isjiiday ama isoo jiitay baayida ayagoo adeegsanayo electrostatic force awoodana isjiidadka ayagoo adeegsanayo to form si ay u sameeyaan ionic bonding dabarka ioniga si ay u sameeyaan between u dhexeeyo them ayagoo dhexeeyo. The carbon isku dhiska formid ee sameysmay wuxuu yahay sodium chloride iskoolad ayaa lagu yeeraa an ionic carbon isku dhiska ioniga waayahay halkaan soo fiiri waxaa lagu yiri oppositely charged danami axis ku ah ions ah attract ayaa isjiitay each other midba midka kale midkaan -y midkaan positive y way isjiitay attract ayay sameeyeen kadib waxaa lagu yiri ionado string isku soo ururay together si wada jira ionic carbon isku dhiska ioniga is a carbon isku dhis waay format sameysma baa wuxuu ka sameysmaa iono bonding ee isku dhigay together si wada jira through iyadoo maraayo electrostatic force awoodana isjiidadka ayagoo maraayo. haye madan waxaa la yiri magnesium atomka magnesiumka ayaa waxaa lagu daray oxygen atomka magnesium ayaa waxaa lagu daray oxygen la yiri waayahay ayadana sidee ayuu kusoo muuqan doonaa magnesium waxa uu yahay magnesium waxa uu yahay +2 magnesium waxa uu yahay +2 waa +2 haye plus oxygen waa -2 magnesium metal waay
oxygen non metal waay sidaas darteed waxaa la yiri magnesium iyo oxygen ayaa falgalay sidaas darteed waxaa soo baxayo magnesium oxide labadana positive-ka hoos ayay aadaysaa labadaana hoos ayay aadaysaa sidaas darteed waxaan dhihi karnaa magnesium oxide plus 2dan iyo minus 2dan way isgoosanayaan waa la isla bixinayaa kadib waxaan leeyahay magnesium oxide isku dhiskii saas ayuu ku dhacay waayahay cashirkeena dib aan ugu laabana marka halkaasoo fiiri magnesium atom magnesium lagu yiri bond wuxuu ku dhagaa lagu yiri oxygen ayuu ku dhagay atom oxygen ayuu ku dhagay to form si uu sameeyo magnesium oxide atom muxuu ahay isku dhiska magnesium si uu sameeyo 2 electrons are transferred laba electroniya ayaa la bixiyaa lagu yiri magnesium plus 2 kana minus 2 but ions labada ion lagu yiri each mid waliba half wuxuu leeyahay octet still ayuu leeyahay and the two opposite charge labadana waa cagsi isku ahna particles attracted way soo jiiteen lagu yiri making ion si uu sameeyaa ionic bonding double ionic magnesium plus 2 oxygen minus 2 kida jiidanaya waa soo baxay magnesium oxide وعلى note أرضي واحد وقتها we do not write مقريسي على ويري the charges على عملان مقريسي ضمير مقريسي يعني the ions ions بشوذ مكود القريسي على ويري for the ionic bonding in the vinyl formula حلوين مرك حال كان أجوك the vinyl formula أجوكتي plus 2 minus 2 مكود القريسي وهي example 3 وين قرميبا so وين مركي sodium atom sodium when markii sodium atom sodium combines with oo ku biiray an oxygen atom oxygen oo ku biiray hay oxygen atom oxygen needs waxay u baahan tahay to gain inay hesho 2 electrons laba electron u baahan tahay to complete say warmeysrato it is valence octet qaab maxuu ahay still but laakiin the sodium atom sodium loss wuxuu luminayaa only clear 1 electron hal electron ayuu luminayaa waayahay still weli hal xab plus 1 aheyd kana minus 2 baaya marka koowaad hal ayaa la bixinayaa oxygen-ta hal oo sii dhinaanayso marka waxaa waajib ah in la bixiyo laba sodium still weli the oxygen atom oxygen still weli the oxygen atom oxygen does not have an octet electrons ولما هيستعلو يري still دميستر من هيسو a second electron لبا is needed أيوبا هاي therefore هذا sodium atom sodium is donated أي على بحنايا a second electron لبا أيوبا بحنايا to the oxygen atom oxygen أيوبا سينايا وكان أقول حاول بلا صنواي كان بلا صنواي المركو حواجبة إن لبا oxygen لبا محوها sodium la bixiyo laba electron sodium ka tagtay iyaado oxygen iyaado kadib waxa soo bixayso sodium oxide now hada these three ions sadah iona lagu yiri attract ay soo jiitay each other mid kale to form say sameeya an overall natural charged ionic bond isku dhis dhameystiran dalabyadiisu si uu sameeya with the formula raacadu waxay noqonaysaa sodium sub 2 oo marka waxay sheegaysaa 2 daani in laba mar oxygen oo sodium la bixiyo ay ku caawinaysaa example 4 solar magnesium atom magnesium bonds wuxuu ku dhagayaa lagu yiri with chlorine ayuu ku dhagayaa atom chlorine ayuu ku dhagayaa to form si uu sameeyo magnesium chloride si uu sameeyo isku dhis la yiraahdo magnesium chloride si uu sameeyo use harday isticmaala lagu yiri arrows فالعرض استعمال الويري to illustrate سيا أشرح هذه the transfer electronات بس أصلي from magnesium to chlorine electronات كي مع magnesium مي على chlorine الويري استعمال الويري فالعرض استعمال solution حقي magnesium atom magnesium has 2 valence electrons وحقوليه هاي لو شرط دمبار أيوليه هاي while هالك chlorine atom has أبهاتها has إلها الويري 7 electron
chlorine si ay sideed u buuxsanto waxay u baahan tahay hal magnesium ayada waxay u baahan si ay sideed ay u hesho labada inay bixiso ku qasban tahay chlorine atom only kaliya needs wuxuu u baahan yahay one more electrons hal electron bas u baahan yahay to complete si wadameystirto it is octet still leeviso waa halka magnesium atomka magnesium has uu leeyahay two electrons laba electron uu leeyahay to donate waa inuu bixiyaa there must be marka waxaa waajib ku ah two chlorine atoms laba chlorine atom to accept inay aqbasho the two electrons laba electron from ay ka imaanayso the magnesium atom magnesium the transfer process hanaankan isku gudbin isku isdhaafsankaan isku gudbitaan the transfer process hanaankan ee isku gudbinayo happiness as waxay u dhacaysaa flowing sidaan soo socoto waxaa lagu yiri the transfer process hanaankan isku gudbitaanka ama muxuu ahaa isku dhiibitaanka the transfer hanaankan isku gudbitaanka of electronada happiness uu dhaca as flowing sidaan soo socdo ayuu dhaca chlorine waxaa ka maqan -1 kan waxaa waaye magnesium +2 inta waxaa waaye -1 sidaas darteed magnesium ay waxay ku qasban tahay inay bixiso laba electron chlorine marka hal mar rabee laba chlorine ayaa waajib ah inay halka isku dhiskaas ka qayb qaataan si ay magnesium tan hal u qaadato tan hal u qaadato kadib waxaa soo baxaya waxa la yiraahdo magnesium chloride there is an anti-commonly natiijada isku dhiskaani formula is qaadadiis waxay noqonaysaa magnesium chloride waayahay property sifada of ionic compounds isku dhiska ioniga they are ayagu composed of waxay ka kooban yihiin metals bir ayay ka kooban yihiin aniyo non-metals birmahaya they have ionic bonds waadaba ionic ay leeyihiin in their solid state xaaladooda adkaashaheed ama adkaha do not conduct ma gudbiyo electricity dalabka ma gudbiyo they dissolving waxay ku dhex milmayaan water biyaha and form waxay samaynayaan ions ayay samaynayaan they ayagu are solid adka waayo at room temperature heerkulkooda caadiga adkayaal waayo lagu yeeri examples use ardayga waxuu isticmaalaya the Lewis dot symbol calaamada dhibcaha ee Lewis determine go'aamiya lagu yiri the formulas qaacida of the following ionic compounds isku dhisidaan soo socdo aluminum and chlorine aluminum fluoride ayaan soo baxdo marka aluminum iyo fluoride go'aamiya lagu yiri hay mid waxa uu yiri barium iyo sulfur ayaan go'aami using adigoo isticmaalaya arrows falaari isticmaalay illustrate arday waxa sharaxdaa lagu yiri the transfer electrons isku gudbitaanka electronada to form ee samaysanka potassium sulfide from kiimane potassium atom butna potassium oo bixinaya muxuu ahay +2 bixinaya and sulfur atom wuxuu siinaya atomka sulfur ayuu siinaya which one of the following non-metals kuwaan soo socdo kubeeba lagu yiri birmahayaan forms ay ka samaysan an ionic compound isku dhis ioniga with aluminum ay la samaysan lagu yiri aluminum la sameynaya with the formula qaacida aluminum sub 2 x sub 3 x kan wuxuu taagan yahay afartan curi midkood ayaa falgal la sameynaya waxa lagu yiri aluminum iskaga fududaa where x halka x lagu yiri represents uu taagan yahay the non-metals birmahayaasha uu taagan yahay lagu yiri what happens maxaa dhacaya weel markii atoms loss ee lumiya or gain ay qaataan electronada waxaa dhacaya laga rabaa kabanat ma dhaca mise ionic dhacaya saashana hawsigeeba ionic compounds isku dhiska ioniga vomit oo u samaysmaa lagu yiri saasha lixaad the ionic compounds isku dhiska ioniga formula oo ka samaysmaa between inta u dhaxayso calcium and nitrogen is waxaa leeyahay calcium iyo nitrogen markay fal galaan isku dhisigaana soo baxay calcium nitrate soo baxayso nooca hay B soo baxayso C soo baxayso
D soo baxayso marka calcium plus 2 nitrogen minus 2 marka isku dhiskaas jawaabtiisa waxay noqonaysaa C ay noqonaysaa sababtoo calcium plus 2 iyo minus 3 way isla dhaafsanayaan kadib 3 ay qaadanaysaa tan 2 ay qaadanaysaa عشرة كلمات ما عندك مصرية فصدق فهمتوا جبت كيس لواء 10 كيس أفراد أنت ما ينقص ميرينا أنت العشرة كايدينك وكل دور وهيدينك قلت يا سيدي يا معنا الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.